Assalaamu calaykum. Maanta waxaan jeclaystay inaan idiin sharaxo filim laga sameeyay qiso dhab ah oo la soo saaray 2013 laguna magacaabo Lone Survivor. Ku soo dhawaada muuqaalkeena iskana taxadara. ugu horreyn qofka doonaya inuu ku biiro ciidamada gaarka ah ee Mareykanka waa inuu adkaystaa 5 maalmood oo jirkiisa la qoynayo isla markaana la geynayo meel baraf ah. Sidoo kale waa inuu adkaystaa tababar adag oo ay ka mid tahay inuu seexan karo biyaha dhexdooda 4 saacadood. Waxaana loo tixgeliyaa tababaradan inay ka mid yihiin tababarada ugu adag ee ay maraan ciidanka Mareykanku. Dadkana waxaa ka gudba 25% oo kaliya, kuwaas oo loo aqoonsado inay ka mid noqon karaan ciidamadan. Bilowga filimka waxaanu aragnaa tartan uu hogaaminayo nin lagu magacaabo Danny, halka kaalinta labaad uu jiro nin kale oo lagu magacaabo Mike. Wareegga u dambeeya ee tartankana waxa ku guuleysanaya Mike, laakiin Marcos ayaa guushiisa muran gelinaya. Sidoo kale waxa ku soo biiraya nin kale oo lagu magacaabo Matt, wuxuuna weydiinayaa cidda ku guuleysatay tartanka. Iyagoo murmaya ayaa loo sheegayaa inay howlgal u bixi doonaan oo ay soo xaadiraan shirka si ay xog u helaan. Howlgalkoodu waa inay soo qabtaan oo ay dilaan nin lagu magacaabo Ahmed Shah oo ah hogaamiye Taliban u qaabilsan dilalka ciidamada cirka ee Mareykanka iyo sidoo kale dilalka dadka qaxoontiga ah ee caawinaya ciidamada Mareykanka. Kabtanku wuxuu sheegay Ahmed Shah inaanu lahayn wax lagu aqoonsado. Sidoo kale wuxuu sharaxayaa qorshayaasha iyo inay heli doonaan ciidamo gurmad ah haddii ay xaaladdu xumaato iyo inay ka taxadaraan inay ku adkaato isgaarsiintu. Waxay raaceen diyaaradaha helikobtarka ee noocoodu yahay Apache. Markii ay gaadheen goobtii ayay ka soo daateen iyagoo adeegsanaya xadhko. Waxayna lugeynayaan muddo 4 saacadood si ay u gaadhaan tuulada ay filayaan inuu joogo Ahmed Shah. Waxayna tallaabo la socodsiinayaan xogtooda taliska. Isgaarsiintuna marba marka ka sii dambaysa way sii adkaanaysa. Waxay soo gaadheen checkpointigii laga galayay tuulada. Waxay isku dayeen inay la xiriiraan taliskooda laakiin uma suurtagelin. Waxay soo dhaweyso ama diirad ku eegeen tuulada, halkaas oo ay ku arkeen in ay uga shakiyeen inuu yahay Ahmed Shah. Laakiin nasiib darro waxay arkeen in ciidamo badan oo ku hareeraysan. Mike wuxuu Marcos weydiiyay inuu bilaabi karo toogashada, laakiin wuu diiday wuxuuna ku amray inay seexdaan maadaama aanay seexan habeenkii la soo dhaafay. Danny-na waxay ka dhigteen gaar si uu uga ilaaliyo cadowga. In yar kadib Danny ayaa maqlay ari xaggooda u soo socda. Kooxdii ayaa wada toostay waxayna arkeen 3 nin oo xoolo dhaqato ah. Waxayna isku dayeen inay isqariyaan laakiin nasiib darro mid ka mid ah xoolo dhaqatadii ayaa ku kufay lugta Marcos. Waxayna ku qasbanaadeen si degdeg ah inay u qabqabtaan oo ay xidhxidhaan. Danny ayaa isku dayay inuu la xiriiro taliska ciidanka balse signalka oo daciif ah uma suurtagelin. Nimanka xoolo dhaqatada ah waxay ka tirsan yihiin ururka Taliban. Mike wuxuu saldhiga ka wacay khad aan sugnayn isagoo weydiinaya in loogu dhiibo taliyaha. Laakiin markii uu taliyuhu ku soo dhawaaday khadka ayaa go'ay. Mike iyo kooxdiisuna waxay haystaan laba doorasho: inay 3 nin iska sii daayaan oo muddo kooban gudaheed lagu soo qabqabto, iyo inay iyagoo xidhan iskaga tagaan si ay u cunaan dugaagu. Laakiin Marcos ayaa sheegay haddii ay nimanka dilaan inay la kulmi doonaan weerar xooggan, halka uu Matt aaminsan yahay inay dilaan maadaama oo ay howlgalkoodu yahay inay cirib taraan Ahmed Shah iyo ciidamadiisa. Laakiin Mike ayaa qaatay go'aankii u dambeeyay ee howlgalka, kaas oo ah inay sii daayaan xoolo dhaqatada iyaguna ay fuulaan meesha ugu sarreysa buurta. 3 nin ayay sii daayeen iyaguna waxay fuuleen buurta. Marcos ayaa sii eegaya isagoo hubinaya inay xoolo dhaqatadu xogta u gudbiyaan ururka Taliban iyo in kale. Mid ka mid ah nimankii ayaa u ordaya dhanka tuulada. Markii arkeenna waxay ogaadeen inay halis ku jiraan. Danny wuxuu mar kale isku dayayaa inuu la xiriiro saldhigga laakiin may dhicin. Waxay go'aansadeen inay u dhaadhacaan dhanka geedaha oo ay sugaan qorax dhaca kadibna ay sii wataan socodkooda, maadaama oo ay kooxdu ku guuldareysatay 3 wicitaan. Taliyihii saldhigga ayaa go'aansaday inuu waco madaxda ka sarreysa si uu la socodsiiyo inay dhibaato jiri karto. Dhanka kale kooxdu waxay ku jiraan heegan iyagoo ilaalinaya hareerahooda. Matt wuxuu dareemay dhaqdhaqaaq halka Mike uu eegayo buurta wareegeeda. Wuxuu arkay in isku weer laga qabtay goobtii ay ku sugnaayeen, wuxuuna kooxdii u sheegay inay wajihi doonaan ciidamo cadow ah oo tiro badan. Marcos wuxuu qaaday tallaabadii ugu horreysay isagoo toogtay mid ka mid ah dagaalyahanada Taliban. Rasaastii ayaa bilaabatay. Mike iyo kooxdiisuna waxay isku dayayaan inay dhimaan tirada ciidanka Taliban, laakiin markii dhinac walba laga soo weeraray waxa soo gaadhay dhaawacyo halis ah. Raadiyahoodiina waxa lagu burburiyay rasaas. Qoriga dhashiikaha ee ciidamada Taliban hoos ugu dhigeen Matt iyo Marcos. Dhammaan kooxdiina waxay raadinayaan waddo nabdoon oo ay ka baxaan. Mike wuxuu sheegay inay habboon tahay inay ka baxaan dhanka midig, laakiin wuxuu gartay inuu khaldan yahay markuu arkay xubno ka mid ah kooxdiisa oo ay haleeshay rasaastu. Xaaladdu way adkaatay, cadowguna waxay bilaabeen inay adeegsadaan gantaalaha culus. Mike iyo kooxdiisii waxay ka boodeen buur dheer iyagoo ka baxsanaya gantaalaha, waxayna sida kubad laalaaday uga soo daateen buurtii, iyadoo dhaawacyo halis ah ay ka soo gaadheen jidhka qaybihiisa kala duwan. Ugu dambeyn qof walba wuxuu bilaabay inuu is abaabulo oo uu helo dhufays. Muddo yar kadib Danny waxa laga toogtay lugta iyo garabka. Kooxduna waxay isku dayayaan inay u cararaan dhanka kaynta.
laakiin Dani xanuun dartii uu socon waayay waanu ka hadhay. Marcos ayaa isku dayay inuu soo jiido oo uu la baxsado, laakiin Dani mar kale ayaa la toogtay waxayna kaga tageen buurta korkeeda. Waxay galeen dhufays Mattna wuxuu ku jiraa difaaca, halka uu Mike sheegay inuu aadi doono cidhifka buurta si uu u helo signalka. sidoo kale wuxuu siiyay amaankii qoriga wuxuuna u rajeeyay nasiib wanaagsan. Si kastaba ahaatee Mike wuxuu si indhala'aan u fuulay buurta, wuxuu la xiriiray saldhiggii isagoo ka dalbaday gargaar degdeg ah. markii uu kacay waxa haleeshay rasaas wuuna dhintay. ciidamadii saldhiguna waxay soo direen 2 helikobtar ah, inkastoo aanay garanayn goobta saxda ah ee ay joogaan signalka oo daciif ah awgii. kooxdiina waxa ka nool Matt iyo Marcos oo kaliya. nin weyni wadkii waa yaqaanay Matt maadaama uu dhaawacan yahay wuxuu yaqiinsaday inaanu noolaanayn. wuxuu saaxiibkii ka codsaday inuu xaaskiisa u sheego sida uu jecel yahay, laakiin Marcos ayaa u sheegay inaanu dhiman doonin. isla markiiba waxa la beegsaday oo lagu garaacay gantaal. iyagoo u muuqday inay rajo dhigeen waxay arkeen 2 diyaaradood. way ku farxeen waxayna fariin ahaan ugu direen qaylo, laakiin farxadoodii may sii waarin kadib markii mid ka mid ah diyaaradaha lagu dhuftay qoriga RPG-ga, iyadoo ay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa. diyaaradii kalena markii ay aragtay halista ku soo wajahan way iskaga tagtay goobta, waxayna cidla kaga tagtay Matt iyo Marcos. waxaanaynu aragnaa Matt oo ku dhintay geed hoostii. sidoo kale Marcos ayaa la beegsaday gantaal wuxuuna ku dhacay god, waxaana u suurta gashay inuu iska qariyo ciidamada Taliban. helikobtar kale oo nooceedu yahay Apache ayaa timi goor dambe manay arag wax dhaqdhaqaaqa. dhinaca kale Marcos wuxuu soo toosay subaxnimadii xigtay. irbadii xanuun baabiye ah way ka dhamaatay jirkiisuna wuxuu dareemayaa xanuun daran. wuxuu soo aaday bal yar oo aan ka fogayn si uu isaga biyo haraadka, wuxuuna si kadisa uga naxay dad reer miyi oo dul taagan. bam gacmeed ayuu la soo baxay wuxuuna ugu hanjabay inuu isqarxinayo, laakiin ninkan lagu magacaabo Gulaab ayaa u fidiyay garab. waxayna u kaxeeyeen guriga ay ka deganaayeen tuulada, iyagoo maabka ka tusay halka uu ku sugan yahay. mid ka mid ah dadka deegaanka kuma faraxsana joogitaanka askarigan, maadaama ay ciidanka Taliban soo weerari karaan waqti kasta. isagoo aan fahansanin waxa la sheegayo Marcos ayaa mar kale gacanta ku qabtay bam gacmeedkii, isagoo ku yiri haddii aanan guriga joogin adiguna ma joogaysid. Marcos wuu shakisan yahay sababtoo ah ma garanayo sababta ay u caawinayaan dadkani, laakiin ma jirto doorasho kale oo uu haysta. wuxuu Gulaab u dhiibay warqad uu qoray si uu ugu geeyo saldhigiisa. Gulaab ayaa warqadii u dhiibay nin buuraley ah si uu ugu geeyo saldhiga ciidamada cirka ee ugu dhow. dhinaca kale ciidamada Taliban waxay heleen dhiiggii Marcos waana soo raaceen, iyagoo ogaaday inuu tuulada joogo Marcos. Gulaab waxa uu isku dayay inuu joojiyo laakiin may dhageysan. Marcos ayaa dabada loo soo saaray waxaana la geeyay geed si qoorta looga jaro, laakiin waxa soo dhex galay Gulaab iyo dadkii tuulada oo hubaysan, kuna hanjabay inay balaayo dhici doonto haddii ay waxyeello u geystaan Marcos. dagaalyahanadii Taliban dib ayay u gurteen dadkii tuuladuna waxay dib ugu soo celiyeen Marcos guriga, iyagoo ka doodaya waxa dhici doona. Marcos waxa ku siyaaday xanuunkii waxaana daryeelaya Gulaab iyo wiilkiisa. maalintii xigtay kooxaha Taliban waxay isu diyaarinayaan inay xoog ku galaan tuulada. Marcos uu soo kacay waxaana la siiyay biyo iyo cunto isagoo ku wareersan sababta ay u caawinayaan dadka tuuladu. si kadis ayaa darbigii loo qarxiyay waana la soo weeraray tuuladii. dhinaca kale ciidankii saldhigu waxay heleen warqadii uu soo diray Marcos waanay soo baxeen. reer miyigii tuuladuna halis ayay ku jiraan maadaama oo laga tiro badan yahay. Marcos waa la helay wuxuuna isku dayay inuu dagaalamo isagoo dhaawaca. nasiib wanaag wiilkii yaraa ayaa u dhiibay mindi waana ku dilay ninkii. ciidamadii Mareykanka ayaa soo gaaray goobtii si ay u burburiyaan dagaalyahanada Taliban, waxayna si dhaqso ah ula wareegeen tuuladii waxayna soo qaadeen Marcos, laakiin wuu istaagay si uu ugu mahad celiyo Gulaab iyo wiilkiisa iyo waliba dadka tuulada. dib u laabashadii saldhiga Marcos waxa la geeyay taandhada caafimaadka, wuxuuna halis ugu jiraa inuu dhinto laakiin nasiib wanaag wuu badbaaday. sidaana wuxuu ku noqday qofka kaliya ee ka soo hadhay howlgalkii. filimkana waxa laga sameeyay qiso dhab ah oo ka dhacday Afghanistan sanadii 2005 taasoo la doonayay in lagu dilo mid ka mid ah hoggaanka Taliban oo lagu magacaabo Ahmed Shah. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. ha ilaawin inaad kanaalka subscribe saarto gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub.